السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وناكسن ولا لها channel كدقن كابا إيجا دعوة وان السلامة إيميل والبعض إيجا دعوتان بدمانتين نحن ندين رجيني إن العافمات قبتان إن النواد قبتان بريان سنان أيام حكوسة قد بني وانت عدك يجيبان دب إن حكوسة صاري وان كره لجلينيا الموضوع ما أنت حكوسة تلاقي لكوسة دواذا بيرتي أيام ده شجنا ما أنت قضاء يا لكرنيا حافظة مركا قضاء لكرنيا أيام الدنيا إن دي لا أركتان markeedu hore qadada banaanka lagama keeniyo suuqa lagama keeniyo beerta laga soo dhex adeegaya yaa ka warama hadii suuqa laga soo adeegi jiray waxa sadda aan sida waa galey beerta laga soo guray beerta waxa ugu badan hadda aan dhex mariyana waxa ay ka baxaya marka geedaha yar yar ee hoose laga reebo galey way ahayd marka galeyda ayaan soo guranay soo dhawaada jawga waa jawgaas barwaaqada ee cagaarka ee maxaan indhaha u roon maasha Allah walaalaha horta waxaan rabaa inaan u sheego meeshan hadda aan joogo ama bariyahan meesha aan soo gudbinay waxa loo yaqaanaa Mareerey tuulo weeye waxay u dhaxaydaa Balcad degmada Balcad iyo Jowhar bay u dhaxaysaa waxaana ka tirsantahay gobolka Shabeellada Dhexe marka anaga ujeedkeena wuxuu ahaa horta inaan soo gudbino bal nolosha beeraleyda maadaama in badan aan soo gudbinay xoolo dhaqatadii inaan bal markaan beeraleyda iyo noloshooda sida u nool yihiin marka aan soo gudbino iyo waxyaabo marka ay isticmaalaan iyo guud ahaanba dalaga beeraha ka baxa waxyaabo marka dhaqanka u leenahay marka ujeedada halkaan aan u soo aaday sidaas ayay ahayd walow aanan wili gaarin meelii marka asalka ahaa beeraleydii asalka ahayd ama beeraleydii xuduntii Soomaaliya aan wili gaarin marka haddana meeshan tuuladan baan ka bilownay insha Allah waan rajeeyo doona inaan tagi doono meelii maxay tahay waaweynaaye beerihii Soomaaliya ama beerreydii way dhulku kala weyn yahay oo kala balaaran yahay sida u jeedaan hadda halka galey baan fiiqaya ama diiraya ama dubka ka qaadaya galeyduna waa galey loo yaqaano marka ay dabcan sabuulka tahay anagu inta badan sabuul baan iska dhahnaayo sabuul ahaan baa loo dubaa loo cunaa laakiin galeydu waxa weeye iyadoo wili bislaan xogaa iska carga ah yani aan qalalnayn ayaa la karinayaa waan soo fiiqay sida arkiiseen oo la soo dhilay galeyda marka way qoyan tahay sida u jeedaan maanta galeyda ayaa la karinayaa iyo wax kale ayaa qadada lagu karinayaa isla arki doonaa waxaan meesha ku kari doonaa waxay tahay wixii beerta ka soo baxay maadaama aan doonayno waxyaabaha aan dhaqanka u leenahay dhulkeena ka soo go'a inaan la wadaago galeydii baan ku shubayaa hadda sida u jeedaan meeshan waxa degan reer baa degan beerta dhex degan reerkaasuna waa beerrey aryar weelay laakiin beerta ayaa inta badan dadku ay halka u degan yihiin oo maxay ka shaqeeyaan waan ka soo tagnay galeydii dabkii aan soo saarnay haddana wax kale raadinaynaa oo lagu darayo maxay tahay beertu ka soo doonayna soo aan sheegay beertun baa laga dhex adeegayaa suuqa lagama soo iibinayo maasha Allah waa nimcad dadka xoolo dhaqatada ah waxyaabo badan bay haystaan subagii caanihii hilibkii bay haystaan kuwaana iyaguna raashinkii bay haystaan beertan marka taa halka meel yar oo la marmaray leedahay oo marka aan wax ka bixin la soo aado waxaan gureynaa salbuko iyo galey baa la isku karinayaa marka salbuko ayaan gureynaa digir ma ahan salbukadana runtii wadankeena ka baxda iyaduna bisinka waxaad aragteen walaa beerta iska hadba meelo badan bay leedahay boholay oo iska xaalado badan oo iska khatara halkan waliba biyo ma lahan marar badan oo iska dhacday xitaa webiga ku sigtay markaas salbukada ma moodi jirin inay dhulkeena ka baxdo salbukada suuqa baan ku arki jiray waxaan is dhigi jiray digirun baan arki jiray malaha meelaha baa laga keenaa dibadaha laga keenaa laakiin wadankeena ka baxdaa waxa weeye waxyaabo wadankeena ka soo baxa waa la tilmaamaya xagga ka soo guur way beertan ku cusubay Soomaha mid kale way yar tahay oo hadda wax yar ka bisbislaanisay marka sidii digirto kale u baxdaa aan ka raali gelinayaa shanqar ma qalaysan waayo sidii hore baadiyi cilada ma joogo marka sidii digirto kale u baxaysaaba oo eedii digirtu waa isku bixid marka halkaas aan ka gureynaa salbukadii sida idin muuqata maantay qadadeena dadka salbukadana dadkan garanayn walaayada in laga yaabo in magac kale u garanaysa laakiin waa digirta yar yar cagaaran laakiin aan digir ahayn aadka u yar yar marka waa taa beerihii runtii markaad leedahay beer leedahay waa wax aad u wanaagsan waana wax maxay tahay aadan cidnaba u baahnayn bad cidna ma baahanayso inaad beertaada wixii ku yaala soo gurato kadibna aad markaa karsato nolol maalmeedkaagii waxba ugama baahanaysid dhulkana waa dhul beeraha ku wanaagsan maasha Allah ku beeraha runtii muuqaalada qaar ay soo gudbiyay sida muuqaalka hadda ugu dambeeyo kale tuulada qayb kamid ah ayuu ahaa aqabada ugu badan aan tuulada ku arkana waxay aad ama aan aad uga naxay xaalad biyaha aad wasaq u ah webiga dadku cabayaan
runtii xaaladaas oo xaalad iyaduna maxay tahay aad u xun runtii xaalada marka laga reebo sida kale dadku waa dad iska beerahooda iska falanaya maasha Allah iska qanacsan qanaaco leh maasha Allah wax aad u wanaagsan marka dadku inay ku qanacsan dhulkooda oo wixii dhulkooda ka soo baxay ay marka ay cunayaan oo banaanka waxba uga baahnayn marka biyahan waxaan rajeynayaa insha Allah in Ilaahay soo diri doono cid wax uga qabata si ay marka biyo nadiif ah ay u helaan waan soo laabanay salbukadii waan soo guranay gabadha yartaana xaafadda iska fahanay maasha Allah halkaan waxaa degan marka reerka sidoo sheeg reer beerley un baa degan maalinkii dhan bay degan yihiin laakiin magaalada ay aadaan yani balcad ay aadaan habeenkii u hoydaan marka maalinkii dhan bay halkaan laakiin degan yihiin oo haday caruur leeyihiin iyo dad waaweyn leeyihiin dhan reerku halkaan bay degan yihiin salbukada marka waa taa jawaankaas lagu shubayaa waa lagu sukulayaa sukulitaan un baan u garanayaa marka mooyana waa lagu shubaa oo mooyahana waa lagu sukulaa ama waa lagu qobka looga qaadaa jawaankana sidoo kale badan digirteedu waa isku wada mid marka ushaas la dhacayaa soo dhawaada maantay inaan aragno beerahayagii waxa ka soo go'ayaan doonaynaa dhulkeena ku faano haday xoolo tahay haday beer tahay haday wax walba tahaba inaan marka nimcada dhulkeena taala aan ogaano dad badanna ay ogaadaan sida hadda aniga aanan ogeyn salbukada wax way maanan ogeyn waayo maan arki jirin meeli marka aan marmari jirin digirta caadiga oo baan ku arki jiray wax badanna way dhiman yihiin wax badan baa dhiman dhulkii asalka ama beeri asalka wali ma aanan gaarin insha Allah waan gaari doonaa marka waa ka jawaankaas sida u jeedaan jawaankaas usha la dhacayaa si marka qobkii kore uga qaadmo marka lagu soo guray waan ka shubnay jawaankii sida u jeedaan waa tana jawaankii waan ka soo shubnay qobkaas madowga bay leedahay digirtu way caddahay qobkeeda oo marka qolofkeedu marka ay la soo guro laakiin ayadu way madowdahay kadibna waa taa digirtii way cagaaran tahay waa salbukadii caadiga aad garanayso waliba aad u cagaaran marka beerta laga soo guray aad bay u sii cagaaran tahay marka waa la haadinayaa waa taa sida caadiga loo haadinayaa kadibna halkaan ayaan keenaa waan dhaqayaa waan isku darayaa waxaan isku darayaa marka salbukadii iyo galeydina saan u sheegay galeyda caadiga suuqyada taalamaan waa galey jilicsan galey bacaq baa la yiraahdaa galey bacaq bay ku dhahayaan marka waa galey bacaqdii caadiga ahaa sabuulka loo dubanayay ayaa la karinayaa oo waliba aan karis badan aan u baahnayn waa isla arki doonaa ugu dambeyn waxa ay ku soo bixi doonaan dadka marka beerleyda waxay ku leeyihiin cuntooyinkan baan iska karsanaa galeydan salbukadan oo la isku darsanayaa sidoo kale galeyda laftigeeda dhowr nooc baa loo isticmaalayaa marba deenge laga dhiganayaa iyadoo bacaqdaas waa isla arki doonaa marba maxay tahay waxa laga dhiganayaa iyadoo caadiya inta la qalajiyo soorti laga soo sameeyaa maasha Allah ilmaha yar runtii aad wala yaabisa shaqooyinka qabanayaan beeraha ay faleen xoog ay leeyihiin waxaana keenaya raashinka ay cunayaan ilmaha anaga dan magaalada joogna baasti bariis iyo canjeelo ayaana daba socda marka ma jirto baasti bariis waxa ma jirto xitaa quraacda galeyda ayaa lagaga sameeyaa waayo galeyda markay sida ay u jilicsan tahay ma qaadanayso karis badan uma baahna way karinayaan isla markiina waxay noqonaysaa isla markiina way bislaanaysaa wax dhaxa ma qaado doonto marka waan isku dardarsanay dabkaan u shidayaa oo u badinayaa si marka ay si fiican isla markiiba ay u bilaabato asxaabta qaar waxay soo weydiinayaan adigu meel kasto tagto guri yar baad ka heshaa wallahi ma sha Allah meel walba tago dad baa igu soo dhaweeya dad baan isku fahanaa ilaahay mahadiisa muuqaalada qaar dad waxaan arkay ilaahay muuqaalka u dambeeyo kala dadka qaar oo soo bandhigaysa dadkii hore waad qari jirtay runtii dadkii hore ayaa kaamirada diidayay laakiin dadkan kaamirada ayaga ogol yani muhiimadda ayaa taas dadkii hore ee meelay aan duubi jiray kaamirada ayaga diidi jiray laakiin dadkan markaad weydiiso caadi kaamirada caadi u arkaan waa dad mar walba la duubo oo kaamirada marka aan waxba u arkaynin si kastoo taa marka aanu marnaba qof aan ogolayn kaamirada ma doonayna ku soo gudbiyo sidaas ay ku soo baxday ma sha Allah cambuladii isku bedelaysaa dabcan marka waa salbukadii galeydi wax yar bay dabka saarnad wax dhaxa ma saarnayn maamadii wataa marka maamadaas meesha ugu martigelisay halka marka waxa ay fadhido koox ay la socotay oo afar raga ah oo ay la socdeen laba deegaanka iyo laba marka aan ka wada nimid Muqdisho ka wada nimid halkaan ayaa marka loogu keenay qadadii maantay oo ka samaysan salbukada iyo maxay tahay galeyda ka samaysan dhangalowga cambulada iga daranay dhangalowna ma wadataa dhangalowga soo kii islaamaha wala cun jireen islaam wala wadataa sax waa ma sha Allah ilaahay ha kala keeno iyada nabada amiin de weliga ma cunteen cuntadan an laakiin ma moodeen ma ogtaa salbukadaas inay Soomaaliya ka baxdeen ma sha Allah
تركي الله كان منهج تركي ما لكن ده إنه كمان ما بحثت إنه ويسي ما أنت رانكو جنس حدو حرم من غير معنا أنا ده سكرية وأمريكي يقول رئيس أفاران سكرية بيودي بينك قالوا أنت كوي رأي أملانا وحيرة كريه رال نقد أفرننا ماشي وحكوا عنس البرتين ما كاستين يا البرتين مكيالا بدر ها بيرن كاسمين ما شاء الله أنت لقى كأنه جينيس كبريس عاقة عنو جرتين أنت ودن كسر قاعد كورم والله ما شاء الله ما نسي نقول في السوق أنا أو عم قليدة متى كلا واحد وقد وأنت قليدة كلا وقلي مقعد محا مقعد بجقي قلي بتشق الله قلي بتشق بتقيوا بتشقي ميا ها بتشقي معناه وقليدي أو شيء صبول كعمل أيضا هذا وجي لعسن تحت أو حيرك كرسميس كان سوى رمضان سكر قف قربها كدر صدم بس سكر لو ما تلقلن سكر أقدر صدوا ما شاء الله بتقع على السياق وقف عنده باشا هذا كرام برت واي لسه عتبي ناقور رقي بيرلي ذا سنقا باشا محيو في عنته أول يقور مدة حاي والله دي والله محيو في عنته ناقور محيو في عنته مدر كان ها فين أنت سبحان نوفا فاين أنا وسق كان إلى سعيد ما حيفا فاهم ما بكده جيسا دو يقع حتى أدينك بيرلي دي أدينك بيرلي دي إيش هذا عشان أقول جيسيني معاه سباركم عنو مايا أدينك دا عنتان يعني عنتا والب وحاس في عنتا قار قاس كعيان قار وسك عادي قار بسيلين مكته قاسم يعني وحوف في عنتها باشان على شيء ورنتها عم والله استص قاس ملاذ مركا قاسم لها عادي صبوق على مين وين ما يسلبوا كذا أيضا واقع لكن حواق مركل اسكو در محيس كو صباحا ولي اسكو ما در مكته بتمين وابو في تمي وحوقنا ويلاذا على شيء ورنتها بير لو بريق nimanka bariiskii baa soo dileen maxaa leediin بريزي باتكو أنا هذا بس كذا فان قلت أفستان maya dhulka iyagoo falan xitaa cunada suuqyada lagu iibiya soo ma أقطان ها سوق أقطان واكنا قلي فشق على يرسل بوك على maxay kula digeen galeyda marka iyadoo qalayl lagu daro iyo marka iyadoo qoyaana maxay ku si kala duwan yihiin هذا قيان وحدوتا فيتامين وتا فيتامين وتا. فيتامين وتا مركا قلتنا فيتامين كواك بحي وابا انجكتبو marka fitamiin sii wata miya نعم maqlaysaan galeydan oo sabuulka camal ah waa la karsan karaa قلي فشق لا عمبول فشق waxay ku xuntaa cimri badan ma lahan wax badan ma ooli karto ما لا يمدو qofkii beerahan oo kale ka gurto intoo kale oolayso aan hadaan qaato intoo kale iyo ooli kartaa oo galey caadi ah noqon karta qoyaan قيان كو أكل بدغدا قادمود لا يونا sanad ma qoynaane لا يو لبات مالمود كو خويناي laba maalmood kaliya ay لباتن 20 maalmood miya beel loo marka 20 هذا كو قاد لا لبات مالمود كو خويناي هذا أروح دقيقة من الهوس دقيقة inta ayaa muuqaal kusoo gabagabeynaya walaalaha qaaliga waan kaga mahad celinayaa sida wanaagsan aad ii daawanaysaan idila socotaan fariimiina quruxda badan like-tana hanaga hilmaamnina maadaama muuqaalada halis badan iyo dhib badan ka soo marno like-tana noo saara sidaas iyo kulan dambe qeyr